بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. مركزتا وحامهاد اسكاله الله سبحانه وتعالى مهد علم كدب سيدا أن ودعوكسون هاي مانتا ومالنتا معلنك الصوماليا كوي لواتنك نوفمبر هابي تيجرس دي أيان كل حجرنا حفلدان waxay gaar u tahay macallimiinta Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan. ugu horeyn kalmadeydii maanta waxaan ku soo koobayaa qodobooyin dhowr ah anigoo soo koobaya ama soo khulaasaynaya anoo og inay macallimiin kale iga dambeeyaan. waxaan isku dayayaa inaan soo koobo. qodobka koowaad waxaan uga faa'iideysanayaa munaasabadan hambalyo oo aanu dirayo bahda macallimiinta guud ahaan macallimiinta Soomaaliyeed iyo gaar ahaanba kuwa bahwadaagta aan nahay. waxaan leeyahay hambalyo hambalyo heerkaan aan taaganahay iyo inaan bulshada door firfircooni ah ka yeesho dhexdooda mana soo koobi kara macallimiintayda. waxaan leeyahay hambalyo hambalyo macallimiintii wax soo baray. runtii waxaa jira macallin saameyn aad iyo aad u weyn ku lahaa waxbarashadeydii iyo dadaalkaygii iyo inaan maanta heerkaan aan joogo qayb ka noqday. maadsan yihiin ardaydeeda hambali ayaan leeyahay. ustaadka hawada ayaan salaan u marinayaa waana ustaad Cismaan Cabdi Jimcaale oo loo yaqaano ustaad Galay. waxaan leeyahay ustaad salaan diiran ayaan hawada ku soo marinayaa. wax yar haddii aan ka hadlo ustaad Cismaan Cabdi Jimcaale wuxuu ahaa macallinkaygii maadada juqraafiga iyo taariikhda. wuxuuna noqday ama saameeyey heerkayga waxbarasho hadday ahaan lahayd waxbarashadayda maadiga iyo tan diinigaba. keliya macallin ima ahayn, wuxuu ii ahaa sheekh oo in badan kitaabo fara badan ii soo akhriyey anigoon waxba siinaynin. ustaad Cismaan Cabdi Jimcaale hawada ayaan ka salaamaya. ustaad waxaan ku leeyahay nolow intay nolol jirto caafimaad iyo waxaan ku rajaynayaa adduun iyo aakhiraba Allah subhanahu wa ta'ala naxariistiisa inuu ku siiyo. sidoo kale macallimiinta saameynta igu lahaa waxaa ka mid ahaa ustaad Basbaas Maxamed Cabdiraxmaan Isxaaq Allah u naxariisto. wuxuu ka mid ahaa macallimiintaydii saameynta igu lahaa. isagana maanta wuu naga hooseeyaa. waxaan Allah subhanahu wa ta'ala uga baryaa macallinkayga jannatul firdaws inuu hooygiisa ka yeelo. waxaa kaloo ka marnayn ustaad Axmed Ukumoole Axmed Qaasim ustaad Ukumoole macallinkaygii maadada Ingiriiska iyo Soomaaliga laga bilaabo dugsi hoose ilaa iyo dugsiga sare ayuu ahaa. ustaadka isagana wuxuu ka mid ahaa macallimiintii saameynta weyn ku lahaa waxbarashadeydii iyo horumarkaygii. waxaan leenahay ustaad jannatul firdaws Allah kugu waraabiyo. inta noole waxaan u rajaynayaa nolol wanaagsan caafimaad leh. intaas kadib waxaan u mahad celinayaa ardaydeydii hadday ahaan lahaayeen wiilal iyo gabdhaba leh ee ugu horeeyaan fasalka maanta hoggaanka dugsiga salaama u ah ahna dufcadii sagaalaad ee ka qalin jabinaysa sana dugsiyeedka 2025-2026. waxaan leeyahay
دورك firfircoonida habsami u socodka barnaamijkan quruxda badan idinka ayaa ka dambeeyay waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin guuleysta insha Allah ta'ala waxaan la rajaynaynaa sanadkan idinko ah wacdi sagaalaad dhammaantiina inaad noo wada baastaan hadduu ilaahay karaal noqdo waxaan halkaas ka marnayn fasalka form 3 oo ayaguna walaalahooda form 4 garab weyn ka siiyay habsami u socodka barnaamijka waxaan ka marnayn dhammaan ardayda dugsiga hoose dhexe sare salaama kuwa dugsiga dhexe iyo kuwa dugsiga hooseba qof walbo kaalin weyn ka geystay barnaamijkan waxaan leenahay waad mahadsan tahay ardaydeedii sideedaad oo sanadkan waxaan filayaa dufcadii 13aad inay noqon doonaan dugsiga dhexe ka qalin jibin rabta una gudbi rabta dugsiga sare waxaan idin rajaynayaa idinkana insha Allah natiijo qurux badan aan ku qanacno waalidkana oo ku qanco madrasadana ay ku farxi doonto insha Allah waan u jeednaa dadaalkiina halkan ka sii wada idinkana waxaan idin leeyahay hambaliyo sidoo kale waxaan hambaliyo u dirayaa kaamiramanada iyo designarada uu ugu horeeyo engineer Yama oo kaalin weyn ka geystay xafladan maanta haddii aan leed bilicda hoolka farsamadii ama kaamiradii waan uga mahad celinaynaa Yama iyo asxaabtiisa waxaan salaan hawada u marinayaa saaxiibkeygii qaaliga marna aan ilaawi karin engineer Maxamed Amiin Mo Farah ama Mo Shacbaan waxaan leeyahay Maxamed Amiin waa ka xumahay sanadkan waa kala fognahay laakiin hawada ayaan salaam ku soo marinaynaa haddaan nahay bahda salaama wuxuu ahaa isagana wuxuu ka mid ahaa kaamiramanada iyo farsamayaqaanada firfircoonida doorka weyn ku lahaa xafladaha iyo nashaadaadka barnaamijka iskuulada ama iskuulka salaama ka baxa Maxamed Amiin waan ku salaamayaa waxaan ku rajaynayaa caafimaad meel walba aad ku nooshahay nolol wanaagsan barwaaqo leh ku noolow intaas ayaan ku soo gowdweynayaa hambaliyadii aan ugu talagalay bahwadaagteedii asxaabteedii ardaydeedii iyo dhammaan howlwadeennada barnaamijkan xafladda sidoo kale waxaan hawada salaan u marinayaa asxaabteedii aan isla soo wax baranay kuwa qaarna aan muddo isla soo shaqeynay qaarna ah macallimiin qaarna ah dhaqaatiir qaarna ah injineero waxaan leeyahay idinkana waan idin salaamayaa salaan ayaan hawada idin soo marinayaa intaas ayaan ku soo